dhammaan waxaan salaamayaa bahda saxaafadda saakay hawl ayaan ku jirnay hawshaasaan doonayaa inaan uga warramo saxaafadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay halkan ku sugan oo guutada 10aad waxay ku jiraan diyaargarowgaas oo looga go'an leeyahay in lagu difaaco guud ahaan dalka gaar ahaan gobolkan annaga hadda mas'uuliyadiisa ay saaran tahay oo hadda meelo ay ciidamadii deganaa isaga soo guureen ayaan waxaan ugu diyaar garoobaynaa inaan buuxino meelaha ay ciidamada ka soo baxeen iyo inaan difaacno magaalooyinka waaweyn maadaama xilligan doorasho lagu jiro oo laga yaabo in carqalado iyo wax iska yimaadaan marka howlahaas ayaan uga go'an lahayn abaabulka ciidanka iyo diyaargarowga aan ku jirnay sidii loo sugi lahaa ammaanka qaranka guud ahaan gaar ahaan ammaanka gobolkan aan ku sugannahay ciidankeenu waa ciidan awoodo runtii guutada halkan joogto guuto awoodo oo xagga geesiina oo xagga howlgallada ku fiican oo aan ugu mataqaanaa aan loo diyaariyay xagga tababarka iyo xagga qalabkaba ku filan inay gobolka difaacdo wayna difaaci doontaa waad arki doontaa haddii rabbi idmo ama haato xilliga doorashooyinka xasaasiga lagu jiro oo kala guurka ah ama haato guud ahaan difaaca waddanka iyo qaranka gaar ahaan hadda midka gobolkan aan ku sugannahay ayaan mataqaanaa hawshaas ayaan ugu jirnay inaan abaabulo oo u diyaargarayna ciidanka hawshaas uu qaba lahaa ayaan kala hadlaynay oo u diyaarinaynay hawsha ay noocaas ayay ahayd hawsha saaka halka ka dhacday midda kale hadda waxaan anaga ka imid magaalada Muqdisho gaadiid iyo qalabba waan keenay kaasoo loogu talagalay hawsha ayada in mataqaanaa oo hadda aan soo sheegay lagu qabto waadna arkayseen oo indhiinaad ku aragtay saxaafadan way aragtay bulshadana waan tusnay oo soo bandhignay kaasoo oo hawsheena inta hore ka fududeynaya sababtoo ah markii hore gaadiid xumaan haysay hadda awood waxaan u leenahay si sahlan inaan meeshaan rabno aan uga howlgeli karno waxaan u qabsan karno xagga dawladda dhexe nooga yimid xoogga dalka Soomaaliya ayaa nala ka soo siiyay marka waa gaadiid nagu filan waaya qaarna way noo soo socdaan dhaxay ku soo jiraan inta marka uga baxo howlihii gaadiidka iyo hawshii diyaargarowga ciidanka waxaan rabaa dadka waxaan maqlayay dadkan hadda aan la deganahay oo heriiraan ayagoo dhahayo ciidamada baxay walxa saasa mataqaanaa cadowgiya soo dhow ama cadowgiya imaanayo war waxa isaga tala baxaan indhoodii ku arkayeen ciidan difaaci karo oo ku filan horeen u difaaci jiray ayaa jooga magaalooyinkan oo qaranku leeyahay ayaga ku filan waxaan kale oo arkayay kuwa internet ku qorayo dhahayo ciidan maamuleed iyo ciidan saas war waxaas ma jiraan anaga meeshan ka ciidana gobolkan anaga waajibaadka naga saaran yahay inaan difaacano ciidan kale u baahan yahay qabiileed ama mid kale oo internet lagu qorqorayna uma baahno anaga ku filan anaga difaaci karno waan aragtano indhiina isku tusnay inaan ku filannahay horena waa u difaaci jirnay meelaha yaryarka wada cadow ka soo baxana oo tuulooyinka magaalooyinka waaweyn wada cadow sida ceel cali iyo baalkina waad arki doontaan anaga buuxi doona kaalintii ciidamadaasi baneeyeen ciidamadu waa ciidamo ajnabi mar walba ma suurtagal ma inay la sii joogaan kuwa sii joogana mar un bay bixi doonaan kuwa hadda joogana waa kuwa baxayna way baxeen anaga la rabaa inaan qaybta buuxino maanta waa awoodnaa markii la isku daro waxa soo socdo iyo waxaanu gacanta ku haysana marka la isku daro inaan kaalimihii ay mataqaanaa baneeyeen buuxino waa awoodnaa marka dadku walwalka iska dhaafeen annaga ku filan oo hawshaas qaban doona haddii qorsheena waxa waaye waa ka saarinta xaaladda nabadgelyada ugu muhiimsan oo xilligan kala guurka ah in mataqaanaa nabadgelyada la sugo oo si doorashooyinkii iyo howlihii waddanka socday u qabsoomaan xilli kala guurka ay u hagaagaan labo in mataqaanaa aan buuxino meelaha ciidamadaas ajnabiga ka soo baxeen
waajibaadiyada hadda aan wada qorshayaasha aan wadno waa noocaas